inay saaxiib yihiin labada dhinac. Iiraan waxay si kulul u cambaaraysay qaraar Maraykanku u gudbiyey guddiga sare ee hay'adda IAEA ee qaramada midoobay u qaabilsan xakamaynta hubka nuclear-ka. dalka Kenya ugu yaraan hal qof ayaa geeriyooday kadib rabshado iyo banaanbaxyo ka dhacay wadankaasi oo laga soo horjeedo dhismaha xarun lagu karantiilo dadka qaba cudurka Ebola. Cabdulqaadir Cumar Cartan oo ah garsoore Soomaaliyeed oo lagu waday inuu dhexdhexaadiyo ciyaaraha koobka adduunka ee lagu qabanayo Mareykanka, Mexico iyo Canada ayaa ka warbixiyay dhacdadii ka qabsatay garoonka diyaaradaha Miami, halkaasi oo Mareykanku ay diideen ama waaxda arrimaha gudaha iyo immigrationku ay diideen inuu u galo gudaha magaaladaasi isla markaasina ciyaarahaasi uu dhexdhexaadiyo. dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii warah ee soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa weyn. Iiraan ayaa si weyn u cambaaraysay waxa ay ku tilmaantay waxa lala yaabay oo dowladda Mareykanku ay isku dayayso inay cudurdaar u yeesho dagaal ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga iyadoo rabta inay isticmaasho qaraar qabyo ah oo loo gudbiyey hay'adda faafreebta hubka sida baahsan wax u gumaada ee loo yaqaano IAEA guddigeeda shiraya. bayaankan ayaa barta X lagu qoray mas'uulka Iiraan u fadhiya qaramada midoobay xafiiskeeda Vienna ayaa ku cambaariyay dowladda Mareykanka in ay walwal badan abuurayso iyadoo Iiraan barnaamijkeeda nuclear-ka iyo howlihiisa lagu eedeynayo in ay Iiraan diiday inay wax iskaashi samayso. qaraarkan qabi qoraalka ayaa ugu baaqiyay Iiraan in ay macluumaad dheeraada ka bixiso halka uu ku sugan yahay uranium-ka ay taygelisay ee keedka u ah una ogolaato kormeerayaasha hay'addan faafreebta nuclear-ka ee IAEA goobaha kaabayaasha nuclear-ka Iiraan leedahay. Iiraanna waxay ku doodaysaa dhowr goobood waxa lagu burburiyey waxa yeelan lagu gaarsiiyey xilligii Israa'iil iyo Mareykanka ay dagaalka ku qaadeen wadanka Iiraan February 28-keeda. kormeerayaashana suuragal uma aha inay halkaasi tagaan. qaraarkanna waxaa la filaya in cod loo qaado oo ay u qaadaan guddiga 35 ka kooban hay'addan u ah golob fadhiga toddobaadkan. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa sheegay Israa'iil iyo Mareykanka in ay dano badan wadaagaan. waxaa kaloo uu sheegay in xaaladaha qaarkood danaheenna in ay kala jeedaan, wuxuuna ku dooday heshiiska laga yaabo marka lala gaarayo wadanka Iiraan inaan isku khilaafsannahay. waxaan u mahadcelinayaa buu yidhi wixii dhacay bilihii ugu dambeeyey, waxaana dhab ahaantii sanad iyo barkii lasoo dhaafay aan abuurnay buu yidhi xaalad muhiim ah oo madaxweynaha Mareykanka uu aaminsan yahay inay sax ahayd oo muddada fog wax looga qabanayo barnaamijka nuclear-ka ee Iiraan iyadoo heshiis lala geliyo sida uu warbaahinta Mareykanka u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. hadda Israa'iil waxaa laga yaabaa inay arrintaasi ku qanacsanayn ama in ay ku qanacsan tahay, laakiin waxaan hubnaa buu leeyahay in danta Mareykanka loo adeegayo. ururka Xisbullah ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen askar Israa'iiliyiina oo deegaan cusub ka samaysanayay buurta Salca la yiraahdo ku taala deegaanka Qatara ee koonfurta Lubnaan. ururka Xisbullah ayaa sidoo kale sheegay in ay duqeeyeen baabuur isgaarsiinta u qaabilsanaa militariga Israa'iil oo ay la eegteen diyaarad daroona isagoo maraya buurta la yiraahdo Al-Balaaca ee ayadana ka tirsan Qantara. bayaan kale ururka Xisbullah ay soo saareen ay ku sheegeen inay gantaalo la dhaceen xarun cusub oo ciidanka Israa'iil ay ka sameysteen magaalada Marun al-Ras ee koonfurta Lubnaan. hadalladan ayaa waxay soo baxayaan iyadoo colaadda Israa'iil iyo Xisbullah ay ku dhex marayso xuduudka. dagaalka ay labada dhinac isweydaarsanayaan uu socday bilihii ugu dambeeyey. militariga Israa'iil ayaa sheegay 30 sarkaal iyo askar inay dhinteen ilaa iyo 1291 kalena ay dhaawacmeen ilaa iyo inta dagaalka Lubnaan uu dib u bilowday bishii March, sida laga soo xiganayo
wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil 48 sarkaal iyo askar ayaa ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay koonfurta Lubnaan 5 maalmood ugu dambeeyay. militariga ayaa intaas ku daray 75 askari iyo saraakiil kalena in ay gaareen dhaawacyo aad u xun, halka 146 kalena ay gaareen dhaawacyo fudud. tirada ugu dambeysa ayaa imaanaysa iyadoo dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Xisbullah uu xuduud ka socdo ay wali isweydaarsanayaan weeraro iyo weerar celis. gabar xildhibaanada oo ka tirsan baarlamaanka Ireland oo ka tirsan xisbiga socialista ayaa waxa ay sheegaysaa in cunaqabataynta reer galbeedka in ay tahay in lagu soo rogo shirkadaha xiriirka la leh Israa'iil, isla markaasna la xadido shaqada lala qabanayo. waxayna ku nuuxnuuxsatay in loo baahan yahay in tallaabo cabsigelin la qaado iyo cunaqabatayn xag dhaqaale ah oo lagu joojinayo xasuuqa iyo xadgudubyada ay Israa'iil ka geysanayso daanta galbeed Gaza iyo Lubnaan. Gibsi ayaa waxa ay ku baaqday in beesha caalamka ay joojiso hubka ay u dirayso Israa'iil, isla markaana ay joojiso xiriirka dhaqaale ee ururka midowga Yurub ay la leeyihiin Israa'iil. wararka caalamkana waxaa ka mid ah booliiska Kenya ayaa toogtay qof mudaaharaad ah oo ka tirsanaa 100 qof oo mudaaharaad qabanayay oo ka dhana xarunta karantiilka loo furay dadka qaba iboolaha oo laga furay saldhig ciidanka cirka ee Mareykanku ay ku leeyihiin waddanka Kenya. Patrick Wahome oo dadka mudaaharaadaya ka tirsanaa ayaa waxa uu sheegayaa inay ka soo horjeedaan in xaruntaas la furo. dad badan oo goobjoog ahaa ayaa sheegaya ninka la toogtay in xabada ay madaxa uga dhaceen. 2 qof ayaa sidoo kale la sheegay in ay arkeen toogashada, waxayna arkeen qofka meydkiisa oo dhulka yaala, madaxana uu dhiig ka baxayo markii la saarayay baabuurka booliiska. garsoore kubadda cagta oo Soomaali ah oo la yiraahdo Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa sheegaya in riyadiisa ugu weyneyd la xiriirta howlihiisa garsoorenimada in ay burburtay kadib markii xukuumadda Mareykanka ay u diiday in dowladda Mareykanka dhulkeeda uu galo, waxaana laga hor istaagay in uu garsoore ka noqdo ciyaaraha adduunka ee FIFA ay qaban qaabisay ka dhacaya waqooyiga America. Cartan iyo 25 kale oo garsoore ayaa loo xushay in ay ciyaaraha adduunka garsooreyaal ka noqdaan. isaga waxa uu ka mid ahaa 7 garsoore oo Afrika laga xushay. wuxuu noqon lahaa ninkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo ciyaaraha adduunka garsoore ka isagoo la hadlayay wargeys ka soo baxa Mareykanka The New York Times ayaa Cartan waxa uu sheegay fursadda oo ku noqon lahaa calaamad rajo weyn muujisa iyo Soomaaliya inay meeqaan weyn gaartay ayaa waxaa ka hor yimid buu leeyahay dowladda Mareykanka marka laga gudbo in Soomaaliya uu yahay wadan soo kabanaya. waxaana ahay uu yiri nin garsoore oo kaliya oo isku dayay in uu riyadiisa ka gungaaro asaahade ayaan daradaas ayaa u dhacday. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah degdeg ah ee soo kordha, ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. maxamed, aan ku bilowno arrintan Iiraan iyo dhaleecaynta ay jeedinayso. Mareykanka golihii ammaanka waa lagaga soo guuleystay markuu isku dayay inuu qaraar Hormuus ku saabsan uu meel mariyo. Shiinaha iyo Ruushka ayaa codka diidmada qeexan dul dhigay. hadda arrintu waxay u wareegtay IAEA oo qaraar lagu dalbanayo Iiraan inay meel ku sheegto uraniumka ay tahay. laakiin madaxweynaha Mareykanka asaga afkiisa wuxuu ku yiri waa burburinay buu yiri, waxaas way u dhamaatay. weli ma waxaa socota daandaansi Iiraan lagu hayo? sidee arrintani khibrada uga hadlaysaa? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. Iiraan waxaa lagu qaaday dagaal qaanuunka khilaafsan. dowladda Mareykanka waxay isku dayeysaa walahan 35 dal ee ku jira waxay u badan yihiin wadamo Yurub ah. wadamada Yurub in ay taageeraan qaraar Mareykanka u daneynaya
laakiin waxa uu yahayba Iiraan cagaha dhulka dhigi mayso sababtoo ah Maraykanka asagaa ku tuntay golihii ammaanka ee qaramada midoobay iyo hay-adihii caalamiga ah. hay-adana sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Araghchi, qaramada midoobay iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u ololeeya oo dhan waa u dhamaatay. Maraykanka ayaa wuxuu raba ka yeela, wax ay qaadi karaan lama arko. intaa marka laga gudbo, hay-adan qaraar hadday soo saarto iyo hadday soo saari lahayn, Yurub waa la ogyahay inay si dadban Maraykanka ula jiraan. Iiraanna waa la soo golo joojiyey, ra'yigeeda waa dhiibatay, laakiin Maraykanka meydaankii dagaalka ayaa lagu hortaagan yahay. ama hay-adan ha hor keeno ama yu hor keenin, Iiraan uma muuqato in ay yeelayso in barnaamijkeeda nuclearka ee nabadda ah oo Maraykanka marmarsiyo ka dhigto markii uu ku guuldaraystay dagaalkii Iiraan ka dhanka ah. waa gartay, waa yahay. markana balaynu eegno arrimaha kale, maxay khubarada ka leedahay markaa siyaasada Maraykanka? Iiraan inta uunan dagaal ka dhicin iyo wixii ka horreeyey, mowqifka Iiraan waa la ogaa. barnaamijka nuclearka ee waddanka Iiraan inuu nabad yahay waxaa ka marqaati kacay dowladda Ruushka. dhowr goor oo hore ayaa heshiisyo laga gaaray. Maraykanka iyo Israa'iil ayaa alaabtan ka shaqeeyey iyo qorshahan way ku xumaatay. hadda waxaa la rabaa marmarsiye guul darrada looga galaan gasho. waxaana muuqata Iiraan in la rabo marmarsiye in loo raadsado, lagu eedeeyo inay hub nuclear haysato si cudurdaar loogu helo in nuclear lala dhaco. waa sidoo hadalka u dhigayo ninka la yiraahdo Douglas McGregor. Iiraan inay sheegato ama lagu qasbo in ay nuclear tijaabiso, macnaheedu waxa weeye Iiraan Israa'iil baa inta iswaasha nuclear aynu weligeed sheegin oo weligeed qarin ayaa laga yaabaa inay la dhacdo. waxay tahaba dagaalkan waa la isku raacay, ilaahay madax banaanaa dhan waa isku raaceen. Maraykanka iyo Israa'iil qorshihii rabeen waa fashilmeen. laba maalmood ka hor waxaa dhacay waxaan taariikhda hore u dhacin. Iiraan weligeedii allaheed weerar ma qaadin. Israa'iil ayay weerartay iyadoo difaacaysa Lubnaan. waxay ku tusaysaa sida siyaasad juqraafiyeedku isu bedelayo. Maraykanku marka Israa'iil ma difaaci kara hadda, sababtoo ah Iiraan waxba kama maqli mayso. hadday weerarto magaalada Beirut, Israa'iil waa la duqeynayaa, waa qorshaha cusub. Maraykanka Iiraan inay wax ka maqasho waa diiday. Maraykanku si kastoo inta yeelay iyo wax kastuu sameeyey waa durki laadahay. khabiirada qaarkood ayaa waxay hadalka u dhigayaan waddanka Maraykanka waxaad moodaa sida uu Rob Pinfold oo jaamacadda King's la yiraahdo waddanka Britain jaamacaddiisa London ku taala King's la yiraahdo King's College ayaa waxa uu leeyahay xaaladda bariga dhexe ka jirta aad ayay u guracan tahay. weli waxaa socota buu leeyahay in wada hadallo nabadeed in Maraykanku Iiraan la gaaro ay dhib badnaanayso. wuxuuna ku sheegay Maraykanka xukuumadda Iiraan uu rabay inuu bedelo ayaa waxa ay maamulka sida uu rabi lahaa ay ahayd inuu xukuumadda rido, laakiin wixii meesha ka soo baxay ayaa waxay tahay in uu keenay xukuumad tii hore ka xag jirsan oo diyaar u ah inay khataro waaweyn qoorta gashato ama u adkaysato wax walba oo Maraykanka la yimaado, oo doonaysa dagaalka inay dardar geliso. xeerarka dagaalkana ayadaa qoraysa. sidaan aragnay tusaale ahaan duqeynta Israa'iil hadda ku qaadhay ku difaacaysa ururka Xisbullah waa wax cusub weeye oo aan hore loo arag ayuu leeyahay Pinfold. Iiraan hadda gacanteeda ayaa xoogeysatay. marka la fiiriyo colaadii ugu dambeysay, dowladda Maraykanku waxay ku rajo weyneyd inay Iiraan ay in maasho oo barnaamijkeeda nuclearka iyo wax walba ay ka hesho tanaasulaad weyn oo ay ka mid yihiin inay ka taqalusto ururada gacansaarka la leedahay saaxiibadeeda iyo gantaaladeeda buristikada. taa bedelkeedii Iiraan waxaad moodaa inay waxeeda dhan ku dhegan tahay, Maraykankana ay waxba ka maqlaynin. waxaadna muuqata in dib loo furo marinka Hormuz in ay aad u adkaan doonto, xataa miiska wada hadalaya in la keeno Iiraan ma ogola.
waa gartay waaya xagga Lubnaan aynu eegno waxaad moodaa in koonfurta Lubnaan la leeyahay waxay noqon kartaaba goob dagaal oo cusub maxay khubarada ka tiri arrinka koonfurta Lubnaan ayaa waxay noqotay meel dagaal joogta oo ka socdo Roni Kata oo la fagura arrimaha Lubnaan ayaa waxa uu sheegayaa Trump wararkan uu sheegayo ee la xiriirta dagaalka Iran uu dhamaanayaa heshiis ayaan gaaraynaa dhowrka maalmood soo socda hadda waxaa muuqdaa xaqiiqada dhulka ka socota inay ka duwan tahay duqeynta joogtada ah Israa'iil ay ku hayso Lubnaan koonfurta Lubnaan ayaanan ku dhamaan karin maalin iyo wax lamid ah ururka Xisbullah hubkiisa weli wax gaaray ma jirto Israa'iilna waxa ay rabtaa inay dagaal sii wado dagaalkaasna waxa uu socon doonaa muddo dheer Lubnaan marka la fiiriyana waa goob dagaal waxayna la tahay xabajoojin maaha ereyga loo isticmaali karo xaaladda meeshaas ka socota sida maamulka Trump uu hadalka u dhigayo waxa weeye buu leeyahay Lubnaan in la duqeeyo arrintaasna waa arrin culus oo noqonaysa arrin sida la moodaya ka culus waa gartay waa yahay dhinaca kale maxamed aynu eegno oo ka baxno dagaalada iyo war iyo colaadaha iyo xiisadaha ka aloosan caalamka arrinta Cabdiqaadir Cumar Cartan aynu eegno waxaa halkan ka tusayna daawadayaasha madaxweynaha Viva fariin uu jeediyey bishii August 2025 soddonkeedii oo ku leeyahay waxaan xaqiijin doonaa in mucaashaqiinta kubadda cagta iyo dadka aan u dhalan waddanka Mareykanka arrintooda noqon doontaa mid sahlan oo fudud laakiin waxaynu arkaynaa Cartan oo weli baasaboor diblomaasi haysatay oo sida safaaradda Soomaaliya ay sheegayso ay ugu tala gashay ee Nairobi in safarkiisa la fududeeyo bacdama Soomaaliya ka mid tahay wadamo Donald Trump waxyaalaad safar ku rogay dadka ka imaanaya maxay ka macno tahay nin dhalinyaro ah oo hiigsanayay mustaqbalkiisa dadaal badan sameeyay sanadkii la soo dhaafay noqday referiga ugu fiican Afrika in sidaas loo galo iyo sida maanta adduunka uga hadlaya arrintiisa oo ay gaartay warbaahinta oo idil sheekadiisa inay qabsatay su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u fiican marka ugu horeysa Cartan isaga waa dadaalay waxa uu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha dhifta ah laga qaatay qaaradda Afrika garsooraha ka noqon lahayd ciyaaraha caalamiga laakiin waxaa ku horgudban oo FIFA ay khalad ku samaysay waddan aanan kubadda cagta waxba ka aqoon Mareykanka kubadda cagta caalamka oo dhan laga jecel yahay ayaga waxay u yaqaanaan soccer tiimamka ciyaara wax ay yihiin lama arko waddanka Mareykanka gudihiisa waddanka Mareykanka haddii qof weydiiso football haddii aad tiraahdo wuxuu u maleeyaa ciyaarta ay soccerka ciyaarta gacanta lagu ciyaaro oo biraha inta la gashto la isriixriixo gacanta laga tuuro dadkaasa aan u aqoonin xataa ciyaarta in FIFA ay geyso waddankooda ayaa markii horeba horta xulashadaasi ayaa su'aal laga keenaya waxa Mareykanku uu sameynaya wax uguba maaha waddanka Indonesia ayaa wuxuu tixgelinaya ciyaaro caalami ah oo dhalinyarada da'dooda 17 ay jirto waxa uu diiday inuu martigeliyo dhalinyaro ka imaanaysay Israa'iil mabda ahaan Indonesia ma aqoonsana Israa'iil in waddankooda ay ku ciyaaraan oo u diiday ciyaarihii oo dhan waa laga raray Mareykanka oo ballan qaaday sida FIFA mas'uuliyiinteeda ay sheegayaan in uunan faragelin ku samayn doonin dadka ciyaaraha taageera iyo maamulka ciyaaraha iyo garsoorka ballankaas horta waa laga baxay ayaan daro ninkan dhalinyarada ah oo aadka u soo dadaalay ayaa ku dhacday laakiin waxaa muuqata ciyaartan ma aha keliya in lagu ciyaarayo Mareykanka waxaa jira ciyaaro lagu ciyaarayo Mexico iyo ciyaaro lagu ciyaarayo Canada kuwaas ayuu garsoore ka noqon karaa oo loo wareejin karaa laakiin dowladda Mareykanka ayadoon markii horeba magac wanaagsan ku lahayn ciyaaraha ayay hadda marka aad fiirisid caalamka sidoo arrintan uga hadlaya ninkan dhalinyarada ah ayay ceeb weyn dhexda ka gashay in ay siyaasadayso ciyaaro waxa ay muujinaysaa Mareykanka inuu laba dhan la yahay
oo la joojiyana banaan la jiifiyana banaan uu ku dhaqmayo waxaana muuqata FIFA inay mustaqbalka ka fiirsanayso Mareykanka markay la tacaamulayso tan kale oo Mareykanka adana mucjisada kale oo haysata waxay tahay maamulka hadda Mareykanka jira wax allaale wixii sumcad dawladda Mareykanka ee caalamka ku lahayd ama NATO ha noqoto ama ha noqoto khaliijka ha noqoto ama ha noqoto wadamada kale waxaad moodaa in marka ka dambaysa ay Mareykanku u go'doon sii noqonayo waxa inta dheer oo ayadana la yaaban yahay in dadkii ciyaaraha u waloleynayay magaca in ay arintan ka hadlayeen Mareykanka gudihiisa waxaana muuqata cartan ayaan daradaas ku dhacday oo ka soo kabanaya warbaahinta ula hadlay si cad ayuu ugu sheegay in uu asaga garsoore yahay laakiin arintii inta la siyaasadeeyay inuu asagana mas'uul ka ahayn cid kalena mas'uul ka ahayn uu mas'uul ka yahay dawladda Mareykanka mas'uul ka tahay inta waxa dheer madaxweynaha Mareykanka Soomaalida hadda il gaar ayuu ku hayaa mar walba uu aflagaadeeyaa gabadha xildhibaanada dhowr goor ayuu aflagaadeeyay jaaliyada Soomaalida Minnesota ku nool dhowr goor ayuu aflagaadeeyay Mareykanka iyo dawladdan hadda ka jirta waxaad moodaa Mareykanka in ay Soomaalida il gaar ku hayso inta waxa dheer ninka madaxweynaha Mareykanka waa nin taariikhdiisa la yaqaano cunsuri ah oo dadka madowga nacab Soomaalidana sideeda ma jecla mana jecleen waligii sida dad badan oo wax soo qufay hadalku u dhigeen markii uu dhalinyarada ahaa dadkii uu aqoon jiray oo Soomaalida oo iimaan ay ka mid tahay xiriir fiican ma lahayn marka cid madax bannaan oo ma taqaanaa aan siyaasadiisa rabin oo maxaan ku leeyahay xisbigiisa aan ka tirsanayn inkastoo qaar ay u codeeyeen doorashadii ugu dambeysay hadda madaxweynaha Mareykanka inuu cunsur yahay Soomaalida nacab yahay cid walba ogtahay Soomaalida marka waxa la rabaa hadda inta ay midoobaan inay xaaladaha saas oo kale ay soo dhawaadaan Mareykankana Soomaalida kaliya ma adduunka oo dhan tukaan baar la kiyada waatahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashan ay mahadsan yihiin inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan daawada si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay